nabadgeliyo. aad baan idin salaamaya dhammaantiin. sharafi korkiina ha ahaato. waajibkuguma ahaa inaad dhammaan dadka farxad geliso, balse waxaa waajib ah inaadan qofna dhibaatayn. dunidu waa harka labadiisa gelin. maanta waad murgaysaa, bari waad farxaysaa. maanta culays baad arkaysaa, barina fudayd. inna maca alcusri yusraa. wax walboo adag, wax walboo khalafsan, wax walboodan ku farxin haddaad ku sabarto fudayd buu alla gadaal dhigay. waad istaahishaa inaad dhimco ku noolaato, waa haddaad dhibka ku sabarto. darajadu dadka waxay ku kala saramartaa waa cibaadada. addoonkuu alla rabo inuu saramarsiiyo oo uu gaarsiiyo heerka kan cibaadada badan waa uu ibtilayaa. midkii ku sabraa ayaa liibaanay. ku sabarka ibtiladu ma keento ilaa darajo sare oo adduun iyo aakhiro ah mooye. liidnaan ma jirto ilaa xaqa aad ka tagta mooye. dullinimo ma jirto ilaa aad naftaada dullaysa mooye. qoom ilaahay ma beddelo ilaa naftooda iyaga ay beddelaan mooye. haddaad sharta badsato waad u nugushahay sharta. heer ibtilo walba oo kugu dhacdaa aad dhahdo maxaa iga khaldan, ilaahay muusan ii naxariisanaynin. balse haddaad alla ka baqdo, ibtilooyinka hadday kugu bataan xitaa waxba kulama aha, sababtoo alla ayaad aaminsan tahay. cudur walba oo laguu qadaray, si walba u dhibaataysan tahay, haddaad si dhab ah ugu sabarto, abaalkiisa mar unbaad heli doontaa. haddaad fahan liidato oo aad ku sabarto, maalin waa laga abaalmarin doonaa. heer walba aad tahay, sabarka kaasho. rabbi waxaan weydiisanaynaa sabarkii nebi ayuub, sababtoo ah rabbiyow ilaa aad adiga inaad sabar siiso mooye ma awoodna sabar.